odayada dhaqanka deegaanka Soomaalida ayaa shacabka deegaanka Soomaalida gaar ahaan kuwa ku dhaqan caasimadda Jigjiga uga mahad celiyay sida istacaylka martisoorka fiican ee ay ku dheehan tahay walaaltinimadu u soo dhaweeyeen bulshooyinka ka soo qayb galaysa xuska toddobaadka dalladda magaalooyinka oo markii sideedaad ay martigelinayso xaruntani Jigjiga ee dawladda deegaanka Soomaalida. Odayaasha dhaqanka dawladda deegaanka Soomaalida ugu horeeyay Garaad Kulmiye Garaad Maxamed Dool ayaa waxa uu xusay in xuskani wax weyn ku soo kordhin doono magaaladani Jigjiga isla markaasina uu meesha ka saari doono muuqaalkii hadda ka hor ka gudbay ee 4 Agoosto dhibaatooyinkii ka dhacay waxana hadaladiisa kamid ahaa. Ilaahay baa mahad iska leh. ilaahay baan ugu xamdinaqaynaa in si nabadgelyo ah bilowgii xuska ama foorumka magaalooyinka uu bilaabmay shalay toole xafladiisa qurux badan oo aad u qurux badan ayay u dhacday anigoo ka faa'iideysanaya waqtiga waxaan aad ugu mahad celinayaa dadweynaha deegaanka Soomaalida iyo dadweynaha reer Jigjiga sidii quruxda badnayd ay martida u soo dhaweeyeen xafladana uga qayb galeen nabadgelyadana ay u ilaalinayeen marka taas waa mahadnaq aan u celinayo shacabka deegaanka iyo magaalada reer Jigjiga ta kale xuska magaalooyinka ama foorumka magaalooyinku wax weyn buu deegaankeena u yahay magaaladeena u yahay waato u horeysay waxa weeye waa sawir qurux badan inay ka baxo 4 bilood ka hor ama 6 bilood ka hor oo wixii ka dhacay magaaladeena waa ogtiin dhibaatadii ka dhacday dhaqan Soomaaliya midna ahayn dhibaatadii dhacday dadka Soomaaliyeed in dad nabadda jecel oo la noolaanshaha jecel oo la noolaan kara inaan nahay in dadka Itoobiyaanka iyo magaalooyinka kale ee geeska ba yimid inay noo arkaan oo dad fiican oo dadka marti sooro oo wanaagsan oo la noolaan kara inay yihiin in la noo arko waa talabaad inaynu ka soo kabanay dhibaatadii oo ina ahayn wax shacab iyo ummad Soomaaliyeed ay wadin ee ahaa dad abaabulan iyo dawladii markaa meesha jirtay waxay wadeen marka taasna sawir qurux badan bay ka bixinaysay marka dadka reer Jigjiga iyo dadka deegaankuba si u soo dhaweeyeen aad baan ugu faraxsanahay. Garaadka oo hadalkiisa sii wata ayaa dhinaca kale wuxuu bulshada magaalada Jigjiga ugu baaqay inta ka dhiman maalmaha xuska uu socdo inay sii joogteeyaan dadaaladooda soo dhaweyneed ee martida magaalooyinka dalka ee deegaanka ku sugan ay soo dhaweeyaan iyadoo foorumka magaalooyinka faa'iidooyin kor u qaadida bilicda magaalada wax weyn ka tari doono waxana hadaladiisa kamid ahaa. Intay noo hadhayna toddobaad buu soconayaa dadweynaha waxaan ugu baaqaynaa inay martida soo dhaweeyaan khaasatan ganacsatada hoteelada iyo meelaha wax laga cuno in dadka martida la soo dhaweeyo waji furan la tuso iyadoo dhaqankeena tahayna dardaaraniga ahayn haddana si dhibaatadii dhacday ummadda Itoobiya aynu u gaarsiino waxaan inagu ahayn in dhaqankeena suuban aynu tusno waa mid aan xaqan ka gudbinayno odayaalahan. Dhinaca kale Sultaan Fawzi Cabdi ayaa isna dhankiisa mahadnaqa u jeediyay mas'uuliyiinta kala duwan ee dawladda deegaanka Soomaalida odayada dhaqanka warbaahinta iyo shacab weynaha magaalada Jigjiga sida dadaalada aan kala go'aalahayn ay ka muujiyeen maalintii shalay xuska dalladda magaalooyinka inuu ahaa mid aad u sareeya iyadoo ay dhawaan u ahayd nabaradii burburkii 4 Agoosto in deegaanku ka soo kabsado ayay dawladdu muujisay waxay beenisay hadaladii raqiiska ah ee ahaa ma martigelin karto waxana hadaladiisa kamid ahaa waxa way munaasabadan magaalooyinka ee la isugu yimid magaalada madaxda kilka Soomaalida ee Jigjiga runtii dadaal fara badan bay dadka odayaasha maamulka dawladda kan deegaanka magaalada Jigjiga iyo shacab weynuhu dadaal aad u fara badan ayay ka geysteen waxayna muujiyeen runtii waxaanu filaynay wax ka badan bay muujiyeen shacabku inta hadhay muddada hadhayna waxaanu ka codsanaa dadweynahanaga magaalada Jigjiga ku nool mas'uuliyiin iyo shacabba dadaalkii ay wadeen inta ay ka dhamaanayso muddadaas in la wado dadka ganacsatada ah dadka martida noo ah in la soo dhaweeyo oo adeegooda la wanaajiyo ayaan codsanaynaa. Sheekh Aadan Ibrahim iyo Sheekh Muxyidiin Sheekh Maxamed oo iyaguna kamid ah culimada deegaanka ku dhaqan ee deegaanka Soomaalida ayaa iyaguna bogaadiyay sida habsamida lahayd ee ay u dhacday furitaanka xuskan toddobaadka dalladda. Waxaan mahad u celinayaa dawladda kililka Soomaalida oo maaragtay 5 bilood jirto oo runtii dadaal adag sameysay oo anagu aad iyo aad runtii ku faraxnay habkii nabadgelyada iyo habkii maaragtay oo maaragtay bandhigida shirki shalay la bandhigay habku agaasimeen aad iyo aad baa runtii dawladda mahad u celinaynaa odayaasha Soomaaliyeed hadaan nahay waxaan mahad u celinaynaa new booliska iyo militariga oo runtii xagga nabadgelyada ayagoo runtii akhlaaq fiican iyo soo dhaweyn fiican oo dadka markay la hadlaan iyo markay hagaan
waxa maaragtay argagax jirin oo muujiyey iyagana runtii new policy militarigan mahad gaar ahaaneed baan u celinaynaa. waxaan si kal iyo laaba iyo walaalnimo ah iyo Itoobiyaanimo ugu mahad celinaynaa 164 magaalo ee ka soo qayb galay iyo ka badan ee isu xilqaamay in ay bilicdii Jigjiga lagu yaqaanay inay wax ku soo kordhiyaan. Jigjiga runtii sida loo yaqaan magacyo badan leh. Jigjiga waxaa la oran jiray miskiin koris yaa la oran jiray markii hore, waxaa kale la oran jiray raasul madiina. waxay soo eshatay wixii ay ku sifaysnayd ee ahay walaalnimada, martisoorka, isu soo dhaweynta qoomiyadaha kala gadisan. xitaa waxaa ka soo qayb galay oo arkaysa shalay toole Berbera, Hargeysa iyo Djibouti iyo Boorame runtii. iyo waxaa kale oo jooga wasiirka hawlaha guud ee Somaliland, mayorkii magaalada Gabiley baa jooga. farxadda runtii inoo tahay inaga Soomaali ahaan dhaqankii fiicnaa ee lagu yaqaanay oo ahaa martisoorka, kalgacalka, waji furaanta, sharaf inaga inoo tahay. marka runtii qofka Soomaaliga ah marka uu arko qofka martida oo ah wuxuu uga degi jiray faraska. waxaan marka ka codsanaynaa bulshadeena qofka gawaari wata hadduu arko qoomiyadaha kale qof milic taagan ama meel cidla taagan inuuna dhaafina uu qaado, sharaf inaga inoo tahay. waxaa maalintiisii labaad galay xuska foorumka magaalooyinka dalkeena Itoobiya oo si meeqaam saraha shalay looga xusay deegaanka iyadoo ay maanta ay tahay maalintii labaad. haddaba waxaa hadda dhankooda baaq ku aadan ka soo jeediyey uqaasha iyo waxgaradka garaadada iyo ogaasyada kala duwan ee deegaanka Soomaalida qaar ka mid ah oo u horeeyay garaad kulmiye baaqaas oo ku aadan kaalinta kaga aadaneyd xuskan magaalooyinkii lagu qabtay xarunta dawladda deegaanka Soomaalida ee Jigjiga. Ali Barkhad, telefishinka SRTV, Jigjiga.